السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan jawaab adag ugu diraynaa ninka la yiraahdo lugu dheere oo hadallo maaragtay غير mas-uulnimo ah oon loo fiirsanin ku hadlay hadalladaas oo yani hadal maaragtay beri lagula xisaabtamayo oo looga daba imaanayo. lugu dheere waxa uu yidhi magaalada Kismaayo ama deegaanada Kismaayo dad baa xoreystay, waa la xoreystay, dhulna ninkii xoreystay ayaa iskale buu yidhi. su-aashan weydiina waxa ay tahay lugu dheerow ma dhulka ma waxaad ka xoreyseen booran baad ka xoreyseen, Kenyatta baad ka xoreyseen, Ethiopia baad ka xoreyseen, dhulka ama Soomaali baad ka xoreyseen? waxaan leenahay adeer, waxaan leenahay annagu waxaa weeye cid dhul laga xoreystay ma lahan. dhulkii idinka adigaa dad siisay, dadka qabradaari ka yimid iyo meesha la yidhaahdo dhagax buur ka yimidna waxaa lagu siiyey waa dad ku yimid waa qori Kenyaati ah, taangi Kenyaati ku yimid waa anaga adigana nama xoreyn. waxaan leenahay hadalkaad ka hadashay aad ku hadashay waa hadal maaragtay aan la qaadan karin, hadal maaragtay Soomaalinimo ka baxsan, Islaamnimo ka baxsan. waxaan leenahay dhulka adiga aad sheegayso waa la xoreystay, ninkii xoreystay baa jooga, dhul aad xoreysana ma lahan, waxna ma xoreyn kartid. adigaa bacbiida maanta in lagu xoreeyo u baahan, adigaa bacabda ah ama adoon ah in lagu xoreeyo maanta u baahan. qori Kenyaatina dhul Soomaaliyeed laguma xoreyn karo. haddaas leedahay Kenya la wareegtay dhulkaa xoreystay aan u xoreyneyn, noo sheeg adiga. waa hadal maaragtay aan loo qaadan karin, aan maaragtay loo adkaysan karin inaad tirahdid maaragtay dhulka ninkii xoreystaa maxay dhisinaya intaad dadkii lahaa dhulka aad ka boris ka erisay. ma dhulkaad maaragtay reer maxamed cadde ay lahaayeen oo shalay maaragtay hormuud aad ka iibisay? ma dhul maaragtay booran maa iska lahayd ama dhul booran laga xorey maya? waxaan leenahay nin oo isku xisho. waxaan dhegaysanaynaa hadalkiisa ayaan dhegaysanaynaa, kadibna koleyb idinkaa ku xukumi doona ninka inuu saxan yahay inuu qaldan yahay. wuxuu yidhi annaga dhulka waa la xoreystay, dhul ninkii xoreysaas kale yaad ka xoreysay? ma idinka yani Soomaali ma ihidin, Kenyaati maa tihin? waxaan leenahay hadalkaaga waa hadal nacasnimo ah, hadal doqonnimo ah. berin waa la iskaga daba imaanaya, waa lagu weydiin doonaa, adduunyana waa lagu su-aalaya, aakhirana waa lagu su-aalaya. nala daawada kuwa qalbiga ka qoqoro qurbaha jooga meelaha carradaas dibadaha jooga leh dhul aan leeyahay, deegaan aan leeyahay, dhul ninkii ku nool ee dhista ee ku dhinta baa iska leh imo kala dhulka daa leedahay. waa idaacadaha ka maqlaa dhulaan waa ka dhaxay, anna xaggaa degnaa dhulaan waa ka haystaa. war dhulku waa la dega haddaad ka tagto, haddee beer aheed, haddee guri aheed, haddee dhul aheed, haddaa ka tagto waa la degaa. ninka xoreystaa la degaayo. adig ma calaamad gaara kugu taal, laakiin qalbiga ka qooqa maqaayid qabraan ka soo hadlayo dibadaas ku taallo. maxsalaama maxsalaama. qalbiga ka qooq iska dhaaf baa laga soo gudbay. haddaad xoog nooga qaad kartid ma xoog nooga qaad. anaga maadaama adiga aad caburisay, adiga aad ka mid tahay dadka dhibaatada ku wada beesheena, dhalinyarada xilxilo, odayaasha dhaqanka, wiilasha qaarna maaragtay u hanjabaado, guryahooda ugu tago. anagu ma joojinayn hadalkeena, waan sii wadaynaa insha allahu inaan maaragtay aan idin fadeexayno, inaan soo sheegno waxyaabaha dhibaatada meesha ka wadid, dhibka maalin walba meesha ka wadid, oo dhulkooda dadka wareejisid, oo maalin walba maaragtay dhagax dhig aad samaysid mashruuc qaxooti la dejinayo la leeyahay, laakiin dad dibadda laga keenay la dejinayo oo istitaan lagu samaynayo, ama sida Falastiin oo kale, Israa'iil oo kale dad cusub lagu beerayo deegaamadii Kismaayo dayal dhihi jiray oo beesha ay degneyd iyo beelaha kale maaragtay Soomaaliyeed ay deganaayeen. marka anaga waxaan leenahay ama hadal noo hanjab ama hanjabin ma joojinayno hadalkeena, waan sii wadaynaa, waan sii cambaaraynaynaa. caawun life aan soo galayna insha allah. hadalkaaga aan kuga ceebayno ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada beesha shaqaaleed hortooda aan kuga ceebayno bidaal kariim iyo bulshada shaqaaleed dhammaantooda. wassalaamu calaykum waraxmatullah.